أنت مغليس يا أنت يا أركي سبا حنكو سلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درجة إذا واحد ويوضياش إنما دونه ذخير للكسي أما تنادان كمية هاي بشير عرب اللي يرادا دات كإن بدن باي قرنايسه وعنو شيء إن دجال كدعيبة الصومالية أم عالم كودن كور رمينا دجال كحالة قرصور كدعي وهنتدي يعرورتي يبعتدي الجول لاي دجال كاسوح الدبا الصعداء لبادي يكون يكوب يطبن كي دجال كها نلقو ويرري على الشباب ما أنت الدولة دوحة ومجا بحيصي عبتي هي دتك قبل ياشا waxaad moodaa labada hadal inay istabaaqayaan waxaan ummadda u sheegaynaa caalamka oo dhan uga warramaynaa arintaasi khaladaha loo wajahay mana aha sida loo dhigay ummadan oo la xasuuqay oo lagu laayay oo dawladii magaca ay la lahaayeen ay ku lagu laayay way magaca dawladda lagu laayay waxaan ka rabnaa arintaas waxaanayna dhalinyaradii iyo dagaalka dadkii gali jiray baan gacanta ku haynaa ma rabno in dhiig kale ku daato waxaad hadda sidaad ogtiin 2 bilood baan waxaanu hawlgal ugu jirnay nabadajin magaalada Galdoog iyo Bandiiraley inta ka dhaxle ma rabno inaan marka dadkii ku colaadii shalay anagu aan ka toobad keenay Soomaaliya oo uga digayna inaan ku celino ma rabno waxaan dawladda Puntland uga digaynaa arintaas inay ka qoomamayso oo sheegto dadkii wax gaareen biletoos ka bixiso aad iyo aad baan arintaas uga warramaynaa sida loo turjumayna ma aha sida anigu aan u dhigay oo runtii oo ilaah ka warqaba weeye dadka hadda ku dhintay dadkii culimada ahaa oo aad loogu hanweynaa weeye ama ganacsatadii ama odayaashii dadkaas weeye dadka ku leeday arintaas aasaan u sheegaynaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun marka hore waxaan ka tacsiyeynayaa dadkii shuhaadada ahaa oo ku dhintay weerarkii xalay iyo saakay ay ku soo qaadeen ciidamada Puntland waxaan adduunka u sheegaynaa intana maqlaysa iyo intana la joogtaba weerarkaas inuu ahaa weerar xaq darra oo khalad ah weerar si qaawan loogu soo qaaday beel weerar lagu burburiyay dhaqaalihii iyo guryihii iyo dadku wuxuu lahaa hanti weerar lagu laayay maatadii iyo caruurtii weerar aan waxba loo reeban hubka noocyadiisa kala gedisan loo isticmaalay annagu waa isxakamaynay haddaan nahay beesha leelkase waxaan hor taaganahay ciidankayagii waxaan hor taaganahay dadkayagii waxaan hor taaganahay dadkii dhibaatadu gaartay oo la xasuuqay oo la baabi'iyay haddaan odayaalnahay waxaan rabnaa dhibaato dambe inaysan dhicin waxaan doonaynaa nabadda sidii aan u raadinaynay inaan u raadino waxaan ka fakaraynaa mustaqbalka iyo danta Soomaaliyeed waxaan ka fakaraynaa danta reer Mudug nimankaas soo duulay oo garoowa ka yimid waxaan rabnaa dawladda Puntland ayada ujeedada ay ka lahayd ayada taqaanee inay si cad wax uga qabato isla markaana sharciga soo horkeento dadkii falka ka dambeeyay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aniga magacayga maxamed guuleed Muuse la yiraahdo dhaqanka beelaha Soomaaliyeed ahna beelaha leelkase dhaqankoodan kamid ah dadkana garanaya waa og yahay inaanu fidna ka talino iyo inaanu nabad ka talino waana garanaya mad badan oo garanaysaana maqlaysa odayaasha naga horeeyay oo codka nooga horeeyay waxay ku hadleen baanu adkaynaynaa inay jiraan waxaan u sheegaynaa beesha caalamka waxaan u sheegaynaa Soomaaliya waxaan u sheegaynaa Puntland ismaamulka Puntland waxaan u sheegaynaa intii nabadda danaynaysa falka xalaq ka dhacay gaalkaayo sida loo wajaho loo sheegay inuu sanahay ee uu yahay sidaanu sheegayno halka waa lagu soo duulay garsoorta koonfura la yiraahdaa waa lagu soo duulay hubkii dawladda lagu soo duulay teknikii dawladda lagu soo duulay diraaskii dawladda loo soo qaatay
annagu Puntland annaga ka tirsan oo Puntland baa saa yeeshay malihiina waxaan leenahay Puntland ciidan ka yimid baa saa yeelay ciidamo Puntland ka yimid baa saa yeelay waxaa loo adeegsaday waxaan aqliga geli karin makhluuq tiro badan oo nus milyuun gaarahaya baa waxaa lagu magacaabay maandooriye lagu magacaabay maandooriyuhu qofkii lagu arko ama meeshii lagu arko ama meeshuu joogo ma lagu qabto waxa lagu burburiyay mawlacyadii diinta waxa lagu burburiyay masaajidadii waxa lagu burburiyay sagiirkii waxa lagu laayay caruurihii waxa lagu laayay aqoon-yahankii waxa lagu laayay culumaa diinkii baa lagu laayay markaas waxa la leeyahay waxa laga hortagay cabto iyo waxa laga hortagay maandooriye waxaanu leenahay oo u sheegaynaa intaas aanu u sheegaynaa intana maqlaysa iyo intana danaynaysa iyo inta nabadda danaynaysa iyo inta Puntland sharafkeeda danaynaysa iyo inta Soomaaliya danaynaysa arrintan in wax laga qabto oo sida loo dhigay ayaan ahayn sidaan u sheegaynaa ay tahay inay waxay ku wajahan tahay hadda markaan waxay ku wajahantaa codkayagu wuxuu ku wajahan intaanu sheegnay oo Puntland ugu soo horeysay ku wajahan arrintaas baanu ka digaynaa arrintaasaan falxumadeed sheegaynaa arrintaasaan sida loo dhigay inay ahayn sheegaynaa arrintaasaan mudaharaad ka qabnaa sidii odayaashii hore sheegeen annagu nabadaan ka shaqaynaynaa meel kasta nabadaan xadadaynaa meel aanu joogno dhaqdhaqaaqaanu diidanahay Soomaaliya dhibaatadeeda aanu diidanahay Puntland dhibaatadeeda aanu diidanahay ehelka dhibaatadiisa aanu diidanahay waxaanu raadinaynaa waa nabadda in la arko oo runta laga sheego oo arrintaas noocaasa dadkii caawa falkiyay wuxuu yahay lagu cadeeyo oo dawladda Puntland ay waxay ka qaban lahayd ka qabato adduunka ogeysiiso sidaa weeye waxaanu ka hadlaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.